sanad kasta 15 Sebtembar waxaa adduunka laga xusaa maalinta caalamiga ee dimuqraadiyadda adduunka sida ay shaaciyeen qaramada midoobay. Haddaba Somaliland heer noocee ay dimuqraadiyaddu ka taagan tahay? waxaan su'aashani hor dhignay Mubarak Cabdi Ismaaciil gudoomiye ku-xigeenka hay'adda xuquuqul aadamaha madaxa bannaan ee Somaliland kaasoo sheegay in Somaliland waqti xaadirkan ay dimuqraadiyaddu ay marayso marxalado hoose. dimuqraadiyadda marka laga hadlayo Somaliland waxa dadka maskaxdooda ka soo dhacda doorashooyinka maaragtay laakiin doorashooyinka ma aha kama turjumayaan macnaha dimuqraadiyadda oo dhameystiran. dimuqraadiyaddu mabaadi' iyo tiirar 12 maaragtay lagu tilmaamo ay ka kooban tahay waxa kamid ah oo ugu muhiimsan isku xukunka sharciga ama waxa loo yaqaan rule of law-ga ilaalinta xuquuqaha asaasiga ee muwaadiniinta waxa loo yaqaan individual rights-ka waxa kaloo kamid ah maaragtay check and balances in la helo hay'ado dawli ah oo isjeegareeya sida baarlamaanka garsoorka iyo maxkamadaha iyo maaragtay dawladda ku shaqeeyaan shuruucda raacda. Somaliland kala hadana soo noqdo Somaliland sida dastuur ku qoran oo dal dimuqraadiya waliba dimuqraadiyadda qaadanay waxa weeye dal dastuurkiisu ku dhisan yahay dimuqraadi waxa loo yaqaan constitutional democracy state baynu nahay. waxaan soo qaadanaya warbixintii ugu dambeysay Freedom Center aqal la yiraahdo oo xorriyadaha dalalku eriyooyinka ka qiimeeyaan ka maaragtay warbixin ka soo saaray 2018 warbixintii ugu dambeysay ee uu soo saaray Somaliland wuxuu ku tilmaamay dalalka qayb ahaan xorta ah ama waxa loo yaqaan partially free يعني دل aan dhamaan gabi ahaan baan xor ahayn laakiin qayb ahaan xorriyadaha haysta. waxaanu ku qiyaasay kororku inaanu gaarin 50 isla markaana aanu gaarin 100 laakiin wuxuu ka soo qaatay warbixinta ay ka soo qaadanaysaa 100% ilaa 40%. taa macnaheedu waxa weeye isnad guud Somaliland dimuqraadiyadda inaanu 100% sidii la rabay aanay ahayn oo aanay wanaagsaneyn. 2019 waa isku mid inkastoo marka loo eego recordka dadyoga loo xiray aragtiyahooga ama xorriyadda hadalka ay kamid yihiin telefishinada la xiriiriyay saxafiyiinta xiran ay kamid yihiin waxaad moodaa kororka tirada inuu badan yahay 2019 tusaale ahaan 2018 waxa la xiray 13 saxafi la xiray qaarkood xukun baa ku dhacay halka 2019 afartii bilood ugu horeysay la xiray 18 saxafi oo cadimaarka Cordon ugu dambeeyay xukun maxkamadeed 3 sano iyo bar ku dhacay. marka waxa anaga marka loo eego diiwaanka inta ay soolka diiwaan gelisay waxa badan kororka dad yoga loo xadgudubka ku dhacay ee la xiriira aragtidooda iyo xorriyadda hadalka waxa badan 2019 waxaan aaminsanahay dimuqraadiyadda dawladda isku wanaagsan waxay dimuqraadiyaddu waxay noqotay wax fudud oo la iska sheego la yiraahdo dal dimuqraadiya nahay dad dimuqraadiya baan laakiin barnaamijku waxa weeye dadka horta yimaada qaad dad dimuqraadiyiin ama way reeraa soo doortay marka qofka reerkooga soo doortay macnaheedu kama dhigayso inuu yahay qof dimuqraadiya. arinta labaad ee ugu weyn ee jirta waxa xisbiyada laftigooda maaha kuwa dimuqraadiya waa xisbiyadu waxay u xiran yihiin reeray u xiran yihiin sidoo kale qofka rangareeya xisbiga ee ama ugu sareeya ama ugu weyn baa xisbiga oo dhan maaragtay gacanta ku haya. warbixinaad xalay ku soo bandhigteen magaalada Hargeysa ama dood ku saabsan dimuqraadiyadda in xubno ka soo qayb galay oo matalaya beelaha laga tirada badan yahay waxay sheegeen dimuqraadiyadda laftirkooga ay ku waayeen xubinnimadii ay ku lahaayeen dawladda in sidee isku qabanayaan cabashadan dadka ay dimuqraadiyadda ka cabanaya ee beelaha laga tirada badan yahay iyo dimuqraadiyadda la doonayay dalka in ka hana qaado. su'aal wanaagsan weeye oo marba dastuurku wuxuu qabaa gaaraan dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland in dadka muwaadiniintaasi ay isgaaraan qof kasta muwaadinaana uu xaq u leeyahay inuu helo cid matasha. inaga way jiraan dadka laga tirada badan yahay maaragtay istirahaan loo takooro beelaha gabooyaan ilaahdo beelaha gabooyo waa runtood maaragtay tabashadoodu way ku saxsan yihiin marka loo eego wax loo yaqaano ma laha cid iyo ka matasha golaha wakiilada sidoo kale golayaasha deegaanka ee dalka laakiin waxa la sameyn karayaa alternative mechanism ama qaabab kale oo lagu gaarsiin karayo dadka sheegtay inay tirada badan yihiin oo ay tahay sida madaxweynaha iyo golaha wasiiradu ay soo jeediyeen in loo sameeyo qoondo ay ku soo gaaraan dadka kale oo ay ku xaq yani minority-nimadooda ma aha inay ku waayeen xaq ay u leeyihiin cid matasho oo u fadhida golaha wakiilada. waxa jirta sanad kasta in caalamka wax laga xusaa maalinta dimuqraadiyadda Somaliland ka hay'adiinu baan wax qaban qaabale Somaliland ma loo kale ku liidato dimuqraadiyaddu marka dhinaca laga eego aad iyo aad waxna aaminsan Somaliland dimuqraadiyadda ku liidato laba sababood bay ugu liidataa. marka hore Somaliland dimuqraadiyadda waxa laga aaminsan yahay marka hore inay tahay wax ku kooban arrimaha doorashooyinka laakiin dimuqraadiyaddu way ka balaaran tahay waxa la xiriira doorashooyinka waxay ka yihiin qayb yar oo kooban bay ka yihiin dimuqraadiyadda iyo talabaad dadka reer Soomaaliya badankoodu ka haysta sawir qaldan dimuqraadiyadeynta ay aaminsan yihiin dimuqraadiyaddu inay tahay tareer galbeed oo qura ay aaminsan yihiin sidoo kale dimuqraadiyaddu inay tahay mid ka hor imanaysa diinta Islaamka laakiin dimuqraadiyaddu ma Mareykanku leeyahay qura dimuqraadiyaddu waxa weeye wax kale waa democracy waxa waa rule
maaragtay daawarka inay leeyihiin dadka shacabka inay leeyihiin ama xukmu shacab baa la ama power of the people baa la yidhahdaa